هذه الأهبالة أنت أنا إسلامه حدنا إهرة حدنا وحاي سقوطني أيان محسي أهين أرين أنفعله وقادنا على مساره دينيا أيان دينين لغنيا ناينو لنا هاي إلهي أنت عينو إني يسوون معنا أريد الساعة الحمد لله وحنا يا آدم مرلباتو بقادين إياه وسودوين إياه حفلة قيمها بضن ومدى أنت عليك يسوقتني Soomaaliya ka timi ama dalka gudihiisa ha ahaato ama dibadiisa ha ahaatee inta soo agaasintay u dhabar dhigtay codka iyo codka ku bixisay isu keentay xilliga xafladda qiimaha badan iyo quruxdaas leh intii soo agaasintay ayaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynayaa سلام يا وحنا ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا يجينا هذا علينا يا حفلة داس أينت عسيدتي أنت سوء أيدي سوء قيم يسي إنك سوء قيم قلانين وسوء تعلي شيء وقت بدن ميل بدن إنك سوء قيم قلانين حفلة دا قيمها بدن isagoo qof waliba wixii guud oo hayay iyo wixii gaar ah oo uu lahaaba ka soo kacay intaasna waxaan leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin mahadilaha walaal inta haddaan ka gudbo waxaan soo dhaweynayaa u hambaliyeynayaa garaadka cusub isagoo garaad Soomaaliyeed ah haddana kusoo biiray isimada aan anigu ka mid ahay waxaan leeyahay garaad soo dhawow hambaliyo intii iga horeysay iyadoo ku hadashay inta iga damaysana ku hadlayso inta maqana aan wakiil u nahay oo hadalkoodii ku hadlayo abaarta aanu leenahay iyo kaalinta aanu rabno diyaar u tahay inaanu kula qabanno iyo wixii aanu kaaga horeynay iyo barbaarintaada ku soo dhawow anoo magaca dhaqanka ku hadlaya diyaar ayaan kulana inta kadib shalay waxaad ahayd Mukhtaar Garaad Cali maantana waxaad tahay Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraar qofku markuu dhasho ama diiniyan ha ahaato ama dabeeciyan ha ahaato wuxuu leeyahay hal magaca kadib ummadda qayb magacoodu larmaa jira oo uu ka mid yahay magaca dhaqanka Garaad Hebel isin Hebel madaxweyne Sheikh Hebel nabadoon Hebel magaca larani qofkaas lagu laray waxa weeye mas'uuliyadii hore oo uu lahaa waxbu ka bedelayaa magaca maanta kugu yeeray iyo walqasha meeshan ka dhacday iyo xafladan qiimaha badan iyo ummadatan intaan deeg oo ku timi iyo inta kale oo maqan oo ka daawanaysa meelaha la iska daawado oo maanta ku walqashay waxa ay kuugu walqashay Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale sida laaligeed ayaad maanta waxa halkaan ka noqotay nin ummadda u dhaxa ayaad noqotay shalay haddii aad ahayd nin asaagii la ficiltama dooda isaga dhiciya dagaal adinkiisu u furan yahay maanta waxa tahay geelu xashiisa ka gaadale waxa laga doonayaa
inaad wax xukuntiin haddana lagu xukumo inaad wax xukuntiin haddana lagu xukumo see wax u xukumi kartaa adigu lagu soo xukumi karaa waxa adigu wax u xukumi kartaa kelmadda xaqa ah cadaaladda ah dadka u dhaxa qofna dulmi aadan u samayn guddoon leh dabac leh ayna tahay midda aad qaadanaysid oo ku dhiiranaysid midda adiga kugu haban dadka islaamka ah ama ehelkaana qancinaysa midda adiga laga rabo oo aad rabtid inaad wax ku xukuntid oo maanta waajibka kugu noqotay oo madashaan ka raacday oo intaani marxaantiga ka tahay midda weey see la rabaa marka inaad lagu xukumo haddii adiga inta laga doonayo waxa lagu xukumayaa daqnan maysid oo daali maysid oo baahan maysid waxa ku imaanaya waxaan munaasib ku ahayn waxa ku imaanaya waxaadan hayn Soomaalida tiraahda dadku wuxuu isku nacaa wax la haya hagartood iyo waxaan lahayn haydaarad adoo hurda adoo buka adoo maqan adoo cayra adoo cood leh intaas waxa ku imaanaysa waxa ku qaban maxaad samayn marka madirin oo dadkii madilin maya weeyo su'aash baahida ay qabaaniin wixii aad ka qaban kadib baad ka qabanaysaa wixii aadan ka qaban karina inaad ka qancisid baa la rabaa haddana 7kii hore oo aynan ku garaadsan ama aakhirkiisa soo gaaray ama taariikhdiisa hayno iyo 7ka ragga aad la mid tahay aniguna la mid ahay aan la soo kulmay way kala bedelan yihiin anigu 2 sano anigoo isina ayaan maalin madal waxaan ka yiri haddii ay hor loo arki jiray ama maanta munaasib igu noqon karto sida siyaasiyiinta waxaan oran lahaa istiqlaal baan dhiibtay maxaa keenay waxa ila kulmay haddana xaasha lilaahi waxaan hor u jirin maanta samayn maysid dibna ha u samayn baan kaga doortay tii aan hadalkaas iga yeersiisay waxa marka kugu imaanaya wax noocaasa hadda marka tiraadidina garaad buraalaata yaa hadee marinkii aad lahayd oo shalay lagu igmaday leexasha ka imaanaysa waxa la doonayaa marka dadka aad mas'uulka u tahay ku doortay inaad waxa ay xaq u leeyihiin xeerka u kala leeyihiin xurmadoodu ku jirto ayagu isugu dhawaanayaan inaad ka shaqaysid maanta reer kuma dooran waad ka tagtay abtirsiinyaha ayaa hebel markii la yiraahdo baad ragga uga dhawaanaysa laakiin xilka maanta halakan ka raacay muslimna waa u dhex hadda munaafiqna waa kuugu imaanayaayo garaadkii baan rabaa buu oranaya maysid gaalka anigu u tagimayo isagoo gaalaad waxa ku hasban tahay inaad qaabishidoo dirtid marka garaad ku soo dhawow galaha dhaqanka annagoo aad iyo aad kuugu faraxsan annagoo aad iyo aad kuugu hambalyeynayna annagoo aad iyo aad kuugu bogaadinayna nooga damay doorasho laakiin waxaan doonaynaa wax badan oo aan ku ciidan xumayn inaad nala ururisid wax badan oo naga maqnaa
aad noo keentid ama wax badan oo aanan dareensanayn aad ugu bidooda keentid ee dooni mayno inaad nin kale noqotid iyada oo inta tan iyo inta ay intaani matashaho Soomaaliyeed maanta madashatan ay ku keensatay wax badan baa ku imaanaya oo munaasiba ama aan ahayn waxa la rabaa inaad kaga gudubtid tolyeelkiisa dhaqda dooda feed dooda dimeed dood calooleed iyo ciilqab mid aan kula kulmayn ma jiro marka inta waxaan kugu celcelinayaa sanada kan iyo kan dambe iska dulqaado wixii ka dambeeya adiga hayimoobaye inta waxaan leeyahay garaadka in waxaan leeyahay dadka ayagoona matala oo shaqada ay hayeen aanu la wadaagno laakiin aanu ka sugaynay garaadku inuu ka soo dhex baxo baan leeyahay